بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعا isaga horta waxa weeyaan guud ahaan xiriir aynu Itoobiya la yeelanaa wuxuu inoo yahay muxuu ahaayay waa arrin istiraatiiji ah Soomaaliland hadday ganacsi noqoto hadday nabadgelyo noqoto hadday iskaashi dhaqaale noqoto hadday wax walba noqoto hadday bulsho noqoto hadday dhaqan noqoto muxuu ahaa haddaan soo qaado heshiiskan isfahanka ah oo isagu maaragtay mid dajad iyo gariir weyn ka riday maaragtay caalamka iyo gobolka oo Soomaaliyana ay sidii fiinta uga qaylisay oo sas weyn bay ka bixisay laba su'aalood markaa meesha imanaya waxa weeyaan maxay saska uga qaaday Soomaaliya arrinkan intii uu joogay uu madaxweynaha ahaa muxuu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh laba goor bay isarkeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Musabbix Cabdi Jabuuti isku arkeen labada goorba waxa warti gelinayay oo ay la fadhiyeen muxuu ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle horta su'aal mid waa mide in madaxweynayaasha Soomaaliya lala kulmo horta xusbiga kulmiye waxa dhibaato siyaasadeed Somaliland kaga dhacay 14 sanadood u dambeeyay waxa ka mas'uula kulmiye hungura qaadayo iyaga furayo waxa dastuurkeena ku qoray nimanka inaan la arag arrintan muxuu hawada ya murabba ma joogeen maanta kulmiya keenay waa kan maxamuud xaashi cabdi waa kan waa wasiirkii muxuu hayday dawladda hawada isaga iibiyay kulmiyuha waxa la jab ka dhacay shirkii Kanada ka qayb gali waayay dadku hadduu shirka Kanada waa la inoo qaymin lahaa lacagta ninkii waliba imagana wuxuu doonaya waliba inuu xusbi noqdo madaxweyne noo noqdo maxamuud xaashiyo adiga halkan cashuurteena goosan jiro waa tii madbacada lagu tigidhada gaarka aad goosan jirtay iyadoon bankiyo ogeyno taasina way kugu qoran tahay ama la timaado way ku hor iman doontaa adiga taariikhdaasna way ku qoran tahay anigu waxaan la yaabanaayba cid aan muddo horta deemid kala political class-ka Somaliland ka jira badankiisuna waa sidaada anagu markaa waxaan leenahay taniba ma joogteen adeer maalintii haddaan hawadayad imagana hawadayada annaga loo xukunna waxa dastuurkeena ku qoray nimanka inaan la arag shirkii Turkiga lagu yeeshay baa ugu horeeyay kii la dhanno ku xigay waxa lacag baa la idinsiinayaa oo labadiinaba ka soo qayb galo been bay isu sheegeen hungura u geeyay muxuu ahaa waxa la wax Turkiga inaga soo gaadhay oo halka aynu ka helay ilaa maalintaasi ma jirto halkan qunsul buu ku leeyahay qunsulkiisa halkan u jooga sida loo galo wadiga arkay dhibaatada dadka ka haysata saddexda qunsul ee joogu ka mid yahay Jabuuti halkan qunsul bay ku leedahay masalaha ku taalo way ku qoran tahay inay qunsul tahay safaaradina xamar bay u fadhidaa marka hadiya gooraale laga hadlayna waxa la yiraahdaa madaxweyne muxuu Ismaaciil Cumar Geelle waa madaxweyne Soomaaliland maaha anagu waxaan waa madaxweyne Jabuuti markuu la hadlayo baarlamaankiisa Faransiis buu ku hadlaa Soomaaliland kuma hadlo afka Cafartana kuma hadlo wala dhaqanada ugu xun ee Afrika isticmaalku inaanu ka dhimanin ay ku haystaan nimanka malaha qolada galbeedku waa ka sii baxayaan oo kuwa saldhigyada Faransiiska si wada daayay haddii nin Soomaaliyeed jiro wadani ahaa oo Jabuuti ka soo jeeda malaha wuxuu ugu dambeeyaan u malaynayaa Maxamed Xarbi naxariis jannaal laasiye waana ogeydeen sidii lagu dilo ku dhintay arrintu ku baxayna waxay ahayd qoomiyadda Soomaalidu u dhintay isaga iyo ninkii caanka ahaa ganacsigiisa Maxamed Rashiid Ali Ismaaciil waxa weeye inta maalin qura Somaliland iyo midna kama shaqeyn ciidamada u jooga halka annaga waxa weeyaan xuduudiisu way naga xidhan tahay baaburadaydu ma galaan isagu kuwiisu way noo soo galaan dadka kuwa dhaqan halkan iyo dadka reer Jabuuti Somaliland iyo reer Jabuuti oo dad walaalo ma kala maarman waan isu soconana laakiin anigu dawladdiisa haddaan dadka reer Somaliland nahay shaki weyn baan ka qabnaa dawladdeedu laakiin way la kulantaa way tagtaa madaxweynaha hore Siinaay inuu tagay cid walba way tagtay isagu waliga halkan nooguma iman anaga dadka marna moo iman isku daliya isku danno waliba isku dan iyo isku diin iyo isku dadno waan u nahay markaa isaga guddiisa waxa weeyaan Itoobiya xiriir bay leeyihiin tareen baa ku xidhan isgaarsiin baa ku xidhan 2,000 baabuur baa maalin walba ka baxa oo dekada waxa weyn dana weyn bay ku qabtaa biyaha looga keenay la biyaha cabayaan waxa ka yimaadaan Itoobiya badankoodu inkastoo qaar xagga iyagan ka yimaadaan ay jiraan
oo ay haystaan ceelasha xagga iyaga ka qodanin iyo xadkayga ka qodan yihiin nu ognahay annagu dowladda somaliland inay ogtihiin kalama garanane intaa markaan ka tago heshiiskan isafgaradkii ma heshiis ma dhicin isafgarad baa dhacay MOU baa la yidhaahdaa waa la yaqaana wuxuu yahay midun baa ka yara dhimanoo waxaanu isna markaanu yara eegnay Ethiopia Jamhuuriyadda Federaalka Ethiopia ku qoran Jamhuuriyaddii Somalilandna kuma qorne Somaliland baa ku qoran waxay adinay Jamhuuriyadda Somaliland ku qorraato marka hadiga gooraale waxaad moodaa xagga borotokoolka madaxweynaha inay wax weyn ka dhiman yihiin madaxweynaha Somaliland oo waxa kamid ah hadda dawladdii gadaroo noo timid baa calankii Bahrain loo dhigay marka madaxweynaha waxaanu kula talinayna inuu borotokoolkiisa aad u adkeeyo dawliga ah oo aanay waxyaabaha caynkan hadalka halkaa ku jira faraq baa u dhaxeeya Somaliland iyo Jamhuuriyadda Somaliland farq weyn baa u dhaxeeya xagga borotokoolka waxa kale oo sheeganaa oo heshiiska ku qoran qoraalka Ethiopia leeyahay Ethiopia qoraalkeedu wuxuu yidhi 5 sanadood buu soo socday wada hadalka iyagu 5 sanadood juuq hadal iyo hugun midna Somaliland lagama maqal waana 5 sanadood uu sheegay waa intii musabixi joogay taasi marka canaanteeda annaga iyo dawladdeeda leh annaga aan Somaliland baa leh cid xoog ku iman kartaana ma jirto hadalka iyo qaylada ka soo yeedhsan nimankan muxuu ahaa Mustafa Xasan Sheekhyana waxa weeyaan riyahaday dub leeyihiin dabadooda ku qarin lahayn baa leeyahay Xasan Sheekh isagaan dekada maxamar galin asagaan madaarka galin oo xukumin asagaan xalana tagin halka gaaladu u fadhiday laga xukumo meesha lagu xukumo waa halkaas asagay 18 oo askari ilaaliyaan oo gurigiisu ka mid yahay asagay safaaradda Ethiopia waliba madaxtooyada ay degan tahay waliba anagu fiisa Ethiopia ku galaa iyagu fiisa aan bay ku galaan nimanka Soomaaliya sheeganaya oo igaad bay sheegtaan anagu fiisa ku galaa lacagna oo bixinaa waliba dollar baan bixinaa bankayga dhaxal ku shubnaa waa arrin wax ka soo qaad leh laba Soomaaliyeed inay jiraan horta sidaa ku garo oo laba dawladood kala nahay halka iyagana xukunna kuma lihid shaqana kuma lihid qaramada midoobayna aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland aynu isku birnay maaragtay markaanu noqonay 1 July 1960 aqoonsiga yaala waa kii Somaliland la aqoonsaday ee 4 cisho kaaga horeysay calanka halka laga hortaagay 35 wadan baan soo taaniyadeeyay way qoran tahay waa taariikh Jamhuuriyad baanu nahay xad baanu leenahay dawlad baanu nahay adduunyada aqoonsan taariikhdan ku naalaa 75 sanadood baanu ahayn maxamiyad muxuu ahaa Ingiriisku ay heshiis la galay odayaashii dhaqankii qaadiyadii xukumayeen mustacmarad ma naan araganako nin wabiga lagaga talaabi jiray nin geel loo diran jiray nin kabalaan lagu dagaal galin jiray sidii baandada ciidamadii baandada iyagoo kabalaba la daanjiyo kabalaan bay ku dagaalami jireen nin bari tusay jariirad lagu soo qoray guuta baandadii ka tirsan ciidanka Talyaani gebigood way kabalcaayeen nin Carbeed baa tusay jariirad al-yawm leeyahay lagu soo qoray waxaan leenahay Soomaaliya wanaagsan tahay oo dad wanaagsan dhaqan iyo diin iyo af iyo xulbo isku kan xidha laakiin siyaasadda waan ku kala baxnay waan la soo noqonay dawladnimadayadii ninna abalugu xoog baan kula soo noqonay Ilaahay baa na gargaaray qorigaan kaga furanay ciidankii Soomaalida intii rag dadkana ma arkin halkan ka dhahargeysan waa looga maydaan qixin maydaan dumin wixii ummadda Soomaaliyeed ay faratadii baa waliba ilaa xamar waxna la baxay waayiradii iyo waxna la baxay iyo looxayag iyo jiinkadaaygi baa la baxay yab baan halkan ku joognaa Ilaahay hadda taqaanaan yaana Soomaalinimada idinka bixinayno Jamhuuriyadda Geeska Afrika la baxnayno Soomaalinimada inaanu ka baxno aanu qarka u saaranahay idinka ummadda Soomaaliyeed maxaa u tarteen annaga idin hiilinay oo soo dhignay dagaalka filla Soomaaliya gidaaradiina ilaa ka daadataan halkaasaanu idinku keenay Xasan Sheekhow adiga iyo qabiilkaaga xamar u badanee degan way iska hurdeen ma hiinimaanu idinku keenay maantana halkaagii baad iska joogtaa al-shabaabna waa halka u taagan hadalkaagina uu noo suntay sidii dhawaatay waxa tiri albaabaanan garaaci jirin baanu garaaci horta qoladii dhawaata barnaamijka laga sameeyo waxba loo qaatay al-shabaabna soo kaxaynana shabaabna anaga noo iman mayso geelaanu ka waraabin adiguna nooma iman kartid qayrkaanu nooma iman karo adeer waxaanu ku leenahay hay naga dhaxayso islaamnimada iyo Soomaalinimada Somaliland waxay noqotay cid walba u jaba halkan waxaan lagu yiraahdaa maalin walba Mareykankii baa soo fadhiistay oo F-16 koodu dayuurada waa soo fadhiisanaya berbera waxa soo fadhiisanaya droneski Mareykanka war Mareykankan xaguu nooga yimid
ما مثلا أقول صنبا ما إمارات كاد ده يسقى كوكل إمارات هو الدولة الدكلية عربات هذا يسي لمن كي حماس إلا قبضة سيدا لمن كفلسطين والدولة الدكلية كوي كلوا عمسل وعاري كل جود وعمله والدبر اللي فيه شو ما يورن يدوى الدولة الدكلية هذا الشيء دكدا سيدا أو قبضتين واللي هو ربحين دولة الصومال أنت كنتي محاي نقصوق علي محاي كسود دقي محاي سيدا وشقيسة فإذا محاي كنتي محاي نوغا سو كردhay iyadana waxa weeyaan wadam daguugano halkaas waxa loo waxay soo saartay waxay soo umada ma garanaysa meel madow baan taagan yahay oo shacabku taagan yahay cidina uma waranto hadalkay waxaan ku soo goynayaa madaxweynaha waxaan ku filanay arinta u muhiimsan horta la imkaan uu sheeganaay waxa weeyaan inuu ka jawaabo wixii ciidanka iyaga ku dhacay 25 August wali waan suganaa isagu galo wasiiray waxbaan u saaray xabaha ka meeraysan madaxweynuhu فالله يقول جلسك هذا ما هذا أرن كاسي وأرن هم عقويسس كي رجود هل كان لجوها يستي العقبة هل كان كدران معلول بالرجود يحرم بقى ملاشيا قبصتي وحكتها جن هل كان مجحوم وين بقى هل كان سمان لأن كجت الله كميدان شوابين عدي كم مسؤول كهين لجمات تلين إلا إنه حساب تننا دولتنا هالشيء لما قال إنه جمهورية دين ونبح وين جمهورية كلا دم وين وحويان هذا نوحن لنا هاي سمعنا والدولة ترتا الدون كجرانية إن كان سقوسا الدون كوينا قوسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.